xildhibaan Ilhaan Cumar oo ka tirsan golaha Koongareeska waddanka Mareykanka ayaa gaartay guul aad u weyn kadib markii ay mar kale ku guuleysatay kursiga xisbigeeda ee aqalka wakiilada dalkaasi. Ilhaan Cumar ayaa kursigan tartanada kula gashay ilaa 4 xildhibaan oo ka mid yahay xildhibaan Antonia, kuwaasoo dhammaantood u hanqaltaagay sida Ilhaan meesha uga saar lahaayeen. Taageerayaasha Ilhaan Cumar ayaa mar kale xushay kadib doorashadii ay ka gashay xisbigeeda dhexdiisa, waxa ayna difaacday kursiga degmada shanaad ee Minneapolis markii la gaaro doorashada Mareykanka ka dhacday bishii November. guusheeda kadib Ilhaan Cumar ayaa dabaaldegtay, waxayna barteeda Twitterka ku shaacisay in iyada taageerayaashoodu ay guuleysteen lacag ay sheegtay in la abaabulo si meesha looga saaro. gudaha Minneapolis markasta waxay ognahay in dadka is abaabula ay ka adag yihiin lacagta la abaabula, waxaana aawada dhaqaaqeenu guul kaliya ma uusan soo hooyine. waxaan kasbanay maamul isbedel keenaya iyadoo ay jiraan dadaallo ay dad gobolka ka baxsan ugu jiraan inay guuldaro nagu dhacdo. mar kale ayaan taariikh dhignay iyadoo ay jiraan weeraro nagu socday, taageerayaashanu way sii kordhayaan ayay tiri xildhibaan Ilhaan Cumar. 4 sano la soo dhaafay waxay Ilhaan Cumar si weyn uga dhex muuqanaysay siyaasadda dalka Mareykanka iyadoo codkooda ku muujinaysay sida uga soo horjeedo siyaasadda foosha xun madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Trump. xildhibaan Ilhaan Cumar oo ka tirsan golaha Koongareeska waddanka Mareykanka ayaa gaartay guul aad u weyn kadib markii ay mar kale ku guuleysatay kursiga xisbigeeda ee aqalka wakiilada dalkaasi. Ilhaan Cumar ayaa kursigan tartanada kula gashay ilaa 4 xildhibaan oo ka mid yahay xildhibaan Antonia, kuwaasoo dhammaantood u hanqaltaagay sida Ilhaan meesha uga saar lahaayeen. taageerayaasha Ilhaan Cumar ayaa mar kale xushay kadib doorashadii ay ka gashay xisbigeeda dhexdiisa, waxa ayna difaacday kursiga degmada shanaad ee Minneapolis markii la gaaro doorashada Mareykanka ka dhacday bishii November. guusheeda kadib Ilhaan Cumar ayaa dabaaldegtay, waxayna barteeda Twitterka ku shaacisay in iyada taageerayaashoodu ay guuleysteen lacag ay sheegtay in la abaabulo si meesha looga saaro.
gudaha Minneapolis markasta waxay ognahay in dadka is-abaabula ay ka adag yihiin lacagta la abaabula waxaana caawa dhaqaaqeenu guul kaliya ma uusan soo hooyin waxaan kasbanay maamul isbedel keenaya iyadoo ay jiraan dadaallo ay dad gobolka ka baxsan ugu jiraan inay guuldaro nagu dhacdo mar kale ayaan taariikh dhignay iyadoo ay jiraan weeraro nagu socday taageerayaashanu way sii kordhayaan ayay tiri xildhibaan Ilhaan Cumar 4 sano la soo dhaafay waxay Ilhaan Cumar si weyn uga dhex muuqanaysay siyaasadda dalka Mareykanka iyadoo codkooda ku muujinaysay sida uga soo horjeedo siyaasadda foosho xun madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Trump